saraakiisha ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn qaybteeda 95 ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxayna maanta beeniyeen in ciidamo ka tirsan Soomaaliland oo ku sugnaa deegaanka Caraweyn ay ku beereen maamulka Puntland ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada Soomaaliland oo ka warbixiyay ka timid Puntland oo si xul u faragelinaysa arrimaha ummadda Soomaaliland ayaa halkan idinku diyaara waxa laaliya waxa duuyaale wax maanta ciidankii ka maqan ma jiro kuwa iyo Caraweynta wax ka dhacayna haddaan ku baxaynaa hadaan laga dhigo bal wixii ka xumaaday aan ogaanay dambiilada soo xirxireen cadaynayna waa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee fadhigeedu ahaa Caraweyn 2016 bishii 6 lagu qarameeyay kuna soo guuray amarka jaranka Buuhoodle ku deganayn labada sanadood shalay been abuur ka dhacay Caraweyn ciidan Puntland oo tagay isku sawiray iyo 8 nin oo naga baxsay anaga oo ciidankayaga hawnin la garaaday u watay baan halkan ka beeninaa inay been tahay Puntland waxaan leenahay fargelinta hadii naga deyn wixii ka dhacay meesha idinka qabo ciidankana waa guutada 9 ee fadhigeedu uu yahay Buuhoodle waxa weeyaan arrintii shalayta Caraweyn ka dhacday ay ka sameeyeen maamulka Puntland niman ka socdo xildhibaano sheeganaya niman ciidan oo ay wataan sideed askari oo kantaroolka jooga anaga fakad banaga ah ayay iyo isbed dad ay urursadeen iyo ciidan ay wateen bay sawir ka duubeen waxay ciidankii Caraweyn buu ahaa nimankaasi waxba kama jiraan kuwaana talaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa anagoo ciidanka Soomaaliland ee degan Buuhoodle ah ciidankii Soomaaliland dhabtaha waka halka ku fayshay annagoo odayaasha reer Buuhoodle waxaanu beeninaynaa hadalkii waxba kama jiraan ka hay barabagaadada iyo been abuurka ahaa ee shalay koox Puntland uu ka sameeyay Caraweyn waxaanu ku beeninaynaa ciidankii qaranka Soomaaliland ee Caraweyn joogay ee amar dawlad kaga soo guuray 9 bilood ka hor saldhigii ciidan ee loo sameeyay inuu degan yahay kuna dhan yahay wuxuu Puntland la galay iyo wuxuu ka noqday midna uusan jirin uu dhisan yahay ee dawladdu hore warqadoodii sameysay iyaguna si degdeg ah hawlgalkiisa iyo nidaamkiisa inay u soo dhameeyaan noona soo dhameeyaan ciidankaas soo qardhactiraan dad aan waxba ka ahaan jirin ba ku soo duulay Hussein Hassan Cadde telefishinka caalamiga Home Cable Buuhoodle